cabdalla cumar mansuur waa qoraa Soomaaliyeed wuxuu bare sare ka yahay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho dagaaladii sokeeyay kadib wuxuu bare ka noqday jaamacad ku taala caasimadda Talyaaniga ee Roma halkaasoo haatan weli ka socdo hawsha mashruuca kaydka Soomaaliyeed ee xarunta cilmi baarista Soomaaliyeed ee isla jaamacadaas ku taala muddo badan ayuuna ku howlan yahay cilmi baarista afka iyo dhaqanka Soomaaliyeed wuxuu qoray buugaag iyo maqaalo badan buugaagtiisa ugu doorka roon waxa ka mid ah buugga la yiraahdo barashada naxwaha af Soomaaliga ee uu la qoray Bugleeli oo ah qoraa Talyaani ah magaalada London ayuu buuggaas ku qoray 1999 buugga labaad waxa lagu magacaabaa buugga qaamuuska af Soomaaliga oo uu la qoray Bugleeli oo isla Talyaani ah waxaanu qoray buuggaas qaamuuska af Soomaaliga Cabdalla Mansuur sanadku markuu ahaa 2012 waxaanu ku qoray magaalada Roma ee dalka Talyaaniga buugga saddexaad waxa lagu magacaabaa taariikhda afka iyo bulshada Soomaaliyeed waxa la qoray nin kale oo af Talyaani ah sanadkii 1988 ayaa la qoray buuggaas isla magaalada Roma ayaa lagu qoray buugga saddexaad waxa lagu magacaabaa afafka bahda kushitiga iyo taariikhda af Soomaaliga waxa lagu qoray magaalada Muqdisho 1981 astaamaha guud ee maasada af Soomaaliyeed waa buug kale oo afraad oo uu qoray Cabdalla Cumar Mansuur hadda qoraaga Cabdalla Cumar Mansuur wuxuu ku nool yahay magaalada Roma ee xarunta dalka Talyaaniga